gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in cabsi laga qabo weerarada al-shabaab darteed uu u fuli waayay ballanqaadkii ahaa in dhagxaanta uu ka qaadi doono wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo xalay ka hadlayay munaasabad loogu dabaaldegay sanad guuridii ka soo wareegatay tan iyo markii xilka loo magacaabay ayaa waxa uu sheegay inay suurtagal weyday inuu fuliyo ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa oo ay ku sugayaan shacabka magaalada Muqdisho. ballanqaadkaasi oo ahaa in wadooyinka magaalada Muqdisho dhagaxaanta ka qaado, balse gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in arrintaasi ay suurtagal weyday kadib markii lagarta kooxda al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho ay badatay. waxa bulshadu aad u danaynaysay dhagxaanta magaalada iyo wadooyinka lagu xiray in la qaado. arrintaas waxay ka mid tahay qodobada nagu taagan oo aan noo suuragelin. ujeedadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqeyno ayaa ujeedadu ahayd, balse arrintaas waa noo suurageli weyday caqabadaha amni ee cadowgu oo noo dhigay wadooyinkii aan ku shaqeyn lahayn darteed. arrintaa iyada ah waqti badan iyo fikir badan ayaan ku bixinay sidii aan ku xaqiijin lahayn arrintaas. ugu dambeyntii inaan dhagxaha qaadno waxaan ku bedel qaadanay inaan fariisimada cadowga ee labada shabeelle kaabiga ugu jira magaalada Muqdisho inaan hujuuno kana saarno cadaawadda. waad ogtihiin ciidamada xoogga dalka inay maantii xaqiijinayaan guulo la taaban karo oo halkii laga soo bixi jiray degmooyin ama magaalooyin muhiim ah ay dib u qabsanayaan ayagoo weliba aan cid kale oo aan ilaahay ahayn garabsanin. dhinaca kale gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in howlgalo culus lagu qaaday gobolada shabeellooyinka si loo xaqiijiyo amniga magaalada Muqdisho. gudoomiye Cumar Filish waxa uu sheegay in howlgaladaasi ay ciidamada guulo ka gaareen isla markaana kooxda al-shabaab laga saaray degmooyin iyo tuulooyin ka tirsan goboladaasi. howlgalka lagu bilaabay shabeellada hoose haddana la sii marayo meelo aan fogfog halkii laga bilaabayna waad garan kartiin. dhinaca kale waxaa ciidamo loo diray xilli dhow shabeellada dhexe ayadana oo ayadana muddo ah laga gooyo isgudubka magaalada Joor iyo magaalada Muqdisho. maantii isgudubkaas waa caadi, ciidamo qalabaysan tababaran awood u leh inay gacanta ku dhigaan amniga deegaanadaas ayaa loo diray. taasina waa ilaahay mahadiis. mar haddii labadaas gobol amnigooda tallaabahaas muuqday laga qabtay, rajada aan qabnaayo waxa ay tahay in magaaladan oo amni dhammaystiran ah leh oo aan wadooyinkooda dhagax ku go'nayn oo kalsooni ay dadku qabaan oo ayan baqanayn in la gaaro biidnillah. gudoomiye Cumar Filish oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in maqaamka magaalada Muqdisho ay xoog saari doonaan raadintiisa muddada uu xilka hayo mar haddii la helay matalaada gobolka Banaadir. maqaamka caasimadda oo bulshadaanu ay u qabto waxa la yiraahdo boholyow inaan taasna ayadana gaarsiino. sida aad ka warqabtiin 2000 jaartarkii dawladii TNG-da carte ilaa waqtigan waxaa ahdi kasta ama dastuurka lagu qorayay magaalada caasimadda waxay yeelan doontaa maqaam, laakiin wax tallaaba oo intaas dhaafsan oo la qaaday ma jiraan. xaqiijinta arrintaas waa hadafkeena haddii alla idmo iyo himilada biidnillah alkariim aan rabno inaan ku shaqeyno arrinta matalaadana inaan dhammaystirno maadaama ay meel wanaagsan hadda ay marayso. hal sano ayaa laga joogaa markii xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabay Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, balse wali shacabka magaalada Muqdisho kama helin ballanqaadyada uu sheegay haba ugu badnaatee furitaanka wadooyinka Muqdisho. madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegay in cadaadis uga yimid beesha caalamka ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. kadib markii magaalada Muqdisho ay yimaadeen maalinimadii shalay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa arintaasi waxa ka hadlay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso. xildhibaan Jeeso ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynayaashan aysan ku imaan Muqdisho rabitaanka dawladda balse ay ku yimaadeen sida uu hadalka u dhigay culeysyo uu saaray safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto. inta wuxuu raaciyay inay mudneed iyaga oo qadirin loo hayay ayna yimaadaan magaalada Muqdisho balse haatan aynan jirin xushmad sharafeed ee loo hayo
waa siduu hadalka u dhigay. Jubbaland iyo Puntland rabitaan Soomaalinimo kuma imaadeen hanjabaada Donald Yamamoto iyo muxuu ahaa ninka la yiraahdo James Swan ay ku yimaadeen ayagayna go'aan wixii ay qabaan oo ku darsanayeen inputka ay ku darsanayeen iyaga soo gudbin doono anigu uma maleynaayo inay u yimaadeen Soomaali jacayl iyo Soomaali arinteeda waxaan ka qaban hanjabaada ugu imaanaysay Yamamoto iyo James Swan ay u yimaadeen marka aan saas leeyahay waxa weey waxaan ogahay sida loo bariyay sida ixtiraamka ahayd ee loo bariyay maanta iyagoon cidna ayna barin ay yimaadeen marka hadday yimaadeen haddana dabcan madaxda dalka u taliso isku mid ah madaxweynuhu si ugu taliyaan ay ahaanaysa Puntland inay wax ku darsato iyo Jubbaland inay wax ku darsadaan inay wax ku darsanin muhiim anaga uma aragna sababtoo waxaan u aragnaa dad dawladnimada Soomaaliya oo dhanba ka soo horjeedaan u arkaa. Said Abdullah Dani madaxweynaha Puntland iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu wadaa in kulamo ay la qaataan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka. Kulamadaasi ayaa daaranaan doonta arrimaha doorashooyinka ee dalka maadaama madaxweynayaashan ay diideen ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb 3 ee arrimaha doorashooyinka looga hadlay iyo waliba hanaanka doorashooyinka ay u dhacayso lagu soo saaray. odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay waxa ku kalifaynay magacaabaan guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle xilli madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare oo guddigaasi ku dhawaaqay. Hanad Maxamed ayaa ka waramay. maamulka Hirshabeelle oo bilihii u dambeeyay la dala dhacay khilaaf iyo isqabsi u dhaxeeya madaxda maamulkaasi ayaa haatan mar kale wajahaya khilaaf xoogan oo ku aadan dhanka doorashooyinka ee dhawaan lagu wada inay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi. odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa kulmo ay yeesheen war-saxaafadeed ay ka soo saareen waxa ay ku magacaabeen guddi farsamo oo ay sheegeen inuu ka shaqeyn doono soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle iyadoo magacaabista guddigani uu ku soo beegmayo xilli madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare uu horay u magacaabay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. Cali Daar Xero oo ah gudoomiyaha guddigan ay magacaabeen odayaasha gobolka Hiiraan oo la hadlay KNN ayaa sheegay in sababta guddigan loo magacaabay ay tahay in loo baahan yahay in dib u heshiisiin loo sameeyo dadka degan gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe isagoona sheegay in guddiga uu magacaabay madaxweyne Waare uusan cidna kala tashan markii laga reebay ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe sidaas darteedna dadka degan gobolka Hiiraan ay xaq u leeyihiin inay ka tashtaan aayahooda sida uu hadalka u dhigay. waxaad ka warqabtaan in dhaqanka reer Hiiraan iyo dadka reer Hiiraan inta ugu badan ay ka soo horjeesteen oo ay diideen dhismaha xilligaas sababta loo diidayo waxay ahayd dadku waa walaal derisna waa la yahay waxyaabo badan oo dadka deriska dhex maraya jiray dib u heshiisiin la bilaabay ahayd la isku laab xaartay ahayd bulshadu isdhex gashay ahayd kadib loo gudbo maamul sameyn in maanta haddana aan aragno madaxda inay wado oo qabadkii haddana degdeg ahaa in lagu dhiso Hirshabeellada labaad oo aanan la gelin juhdi oo aan la gelin waqti sidii ra'iisul wasaare Khayre iyo ay u geliyeen juhdiga iyo xukuumaddiisii ismihii galmudugta cusub ay u geliyeen waxa ku cadaynaysa ku dhawaaqista guddi la leeyahay waxay soo magacaabayaan xildhibaanada baarlamaankii labaad yaa loo magacaabaya bulshadiiba dib u heshiisiin looma qaban waxay ku habboon tahay saamiga awoodtaysi labada gobol laftirkiisa wuxuu ku dhisay hadda si aan xalaal ahayn xilligii hore la dhisay wuxuu madaxweynaha xilligaas joogay warqad digreetaan ku soo saaray in caasimadu ay tahay degmada Buulaburte yaa fuliyey xagee loo raacay waxyaabo badan oo in laga wada hadlo u baahan yahay arkiifyadiina inta dib u baartaan bulshada reer Hiiraan iyo reer Shabeellaha Dhexe ku wada hadleen hadda ay tahay nabisha waxaana magacaabo odayaashii dhaqanka dadku ay lahaayeen 29 bishaynu soo dhaafnay ayayd markii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare uu 11 xubnood u magacaabay guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. shacabka deegaanada maamulka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii dambe diris la noqday dhibaatooyin isbiirsaday iyadoona haatan maamulka Hirshabeelle u muuqdo mid waqtigiisu ku dhameystay khilaaf iyo sidoo kale isqabsi u dhaxeeya madaxda maamulkaasi. war-saxaafadeed ka soo baxay gobolka Gedo qaybta taabacsan maamulka Jubbaland ayaa lagu sheegay in Niza iyo xafiiska madaxweyne Farmaajo tan iyo dhamaadkii sanadkii hore gobolkaasi ay ku soo daabulayeen ciidamo loo isticmaalayo dana siyaasadeed iyo abuuridda jabhad cusub oo sababay inay degmada Beled Xaawo ay ka barakacaan dad ka badan 5,000 oo qoys.
maamulkii raacsanaa Axmed Madoobe ee gobolka Gadow qaybtoodana xilkii laga qaaday ayaa waxa ay sheegeen in amni darrada ka soo cusboonaatay deegaanada gobolka Gadow ay mas'uul ka yihiin madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama ciidamo ka amar qaata halkaasi ay geeyeen kuwa oo ay tilmaameen inay caqabad ku yihiin dhammaan degmooyinka gobolka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay qaatiyeen ka taagan yihiin dadka deegaanka kuwa oo mararka qaar xoog u adeegsanaya shacabka balse arrintaasi loo baahan yahay in laga waantoobo. maamulka gobolka Gadow ee Jubbaland ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka ugu baaqay inay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladda gobolka Gadow. shirkan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga soo horjeeday shir kale oo gudoomiyaasha gobolka Gadow baryahan dambe ay ku lahaayeen magaalada Beled Xaawo ee Gadow taasi oo war qoraal ah oo laga soo saaray lagu sheegay in aysan hoos tegin maamulka Jubbaland isla markaana faragelin ay ku hayaan madaxda sare ee maamulka Puntland. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in sanadka soo socda la dhisi doono iskuulo waxbarasho oo boqolaal caruur ay wax ku baran doonaan. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay dhisaan 280 iskuul kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan 1 milyan oo caruur ah oo aan hadda waxbarasho haysan 3 sano ee soo socota. Wasiir Goodax Barre ayaa hoosta ka xariiqay in wasaaradda waxbarashada sanadihii la soo dhaafay ay sameysay dadaalo lagu dardargelinayay in la daabaco manhajka waxbarashada dugsiyada sare. waxaana wasiirku uu tilmaamay in dadaalkaas ujeedka ay u sameynayaan ay tahay in kor loo qaado tayada waxbarashada si caalamka loola tartamo. waddankeena waxbarashadiisu meeshii la rabay ma gaarsiis kaalinta dawladda dhexe dadaal badan ka socda ilaa 280 iskool ayaa 3 sano soo socota dhismahoodu oo dhici doona. waxaa qorshaha wasaaraddu yahay in 1 milyan oo caruur oo maanta aan iskool tagin inay tagaan 3 sano soo socda hadii ay dadaalkaas marka meel ma tagi karo waa la socotaan manhajkii inuu soo dhamaaday maantay manhajku waa soo wada gaaray bugaagti waa wada diyaar ilaa dugsiga sare waxa loo sameeyay in tayada waxbarashada kor loo qaado tiradana kor loo qaado sidaas ayaa adduunkana la tartami karnaa waddankeena uu nabad ku noqon karaa. ardaygu wax ma baran karo haddii aysan deegaanku nabad ahayn. nabaduna dawlad ma dhaliso kaligeed. nabaddu waa hawl wadareed waa wax la wada leeyahay. ardaygaas yar si uu noogu soo barbaaro waa inaan suuro gelinaa inuu carro nabada ku nool yahay. haddii aysan taas dhicin annaguna lugooya la dhimanaynaa asuguna mustaqbal ma laha. waddankiina hadee waa dad iyo dhul hadduu dadki jirin dhulka waxba ma taro. marka waxaa la rabaa in nabadda lagu dadaalo. Sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa muddooyinkii la soo dhaafay goobo waxbarasho ka dhagax dhigay magaalooyinka Baardheere, Garbahaare, Doolow iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe.